السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهم بأصحابتي كحرين جنرال كيك ودين سلام يلو بدوني ذاك جوكتان هادو موقال كان كوغو عصب يا فضلا سبسكرايب صار لايك هكيلو بالناس صارت فيديوغا ونشير قريس أصحابتي هذا ما أنتو حدين ودا إستري بود نيمر نولشيسي هوري نيمر كومو أها نيمر حل عياريتكيسي هوري واكم النيمر neymar wuxuu dhashtay 5 Febraayo 1992 isagoo jooga magaalada São Paulo ee dalkaasi Brazil. Neymar wuxuu soo jiitay awoodiisa kubadda cagta markii uu yaraa wuxuu ka soo muuqday xidigaha lagu jecel yahay ee kooxda Santos FC isagoo daayara. Neymar oo ku guuleystay 4 abaalmarinood oo toos ah abaalmarinta sanadka halka uu noqday mid ka mid ah ciyaaryahanka caanka ah ee dalka Brazil. Neymar ayaa u dhaqaaqay dhanka Yurub si uu ugu biiro FC Barcelona bilowgii xilli ciyaareedkii 2013 ilaa 2014 waxa uu u noqday koox u hanatay koobo badan oo caalami ah. Neymar kadib markii uu hogaamiyay ragga reer Brazil biladoodii ugu horeysay ee Olombikada sanadkii 2016 xidiga ayaa u wareegay Paris Saint-Germain ee dalkaasi Faransiiska. Neymar iyo saaxiibtiisii hore Carolina Dantas waxay dhaleen wiil bishii Agoosto 2011 oo ay u magac dareen David Lucas. Neymar ayaa kulankiisii ugu horeeyay u saftay kooxda Santos sanadkii 2009 wuxuu ku noolaa nolol heer sare ah isagoo helay abaalmarino ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee da'da yar. Waxa uu u soo muuqday xidig si buuxda u fiicnaa sanadkii 2010 isagoo ka caawiyay Santos inay hanato horyaalo badan iyo hanasho Copa da Brazil. Markii ugu horeysay 3 horyaal oo toos ah ayay ku guuleysatay Santos FC. Neymarna 4 abaalmarin oo toos ah ayuu hantay xilligaas. Wuxuu sidoo kale kulankiisii ugu horeeyay u saftay xulka weyn ee Brazil taasoo durbadiiba caan ka noqotay taageerayaasha da'da yar. Sanadkii 2011 weeraryahanka wuxuu Santos ku hogaamiyay horyaaladii ugu horeeyay ee Copa Libertadores si kastaba ha noqotee wuxuu sidoo kale bilaabay inuu dareemo dib u dhac ku yimaaday caanimadiisa. Neymar ayaa lagu dhaleecay inuu ciyaaray intii lagu jiray guushii rubac dhamaadkii Brazil ee koobkii Copa America ee 2011. Neymar ayaa dhaliyay goolkii boqolaad dhalashadiisii 20aad ee 2012 waxaana uu ku dhameystay sanadkaasi shaqadiisa ugu fiicneed. Inkasta oo Santos kula guuleystay horyaaladii saddexaad ee tooska ahaa haddana da'yarta ayaa mar kale dhaleeceeyay markii Brazil ay guuldaro weyn ka soo gaartay xulka Mexico xagaaga sanadkii 2012. Neymar ciyaar oo u saftay xulka Brazil iyadoo wajahaysay xulka Mexico ciyaartaas oo ku soo idlaatay 2-1 oo ku adkaatay xulka Mexico.